Dhammaanteen waxaan wada ognahay in la xiray caalamka kubadda cagta. Haddana intaan la xirin ka hor, waxaa laga diiwaangeliyay dhacdooyin cajiib ah iyo qisooyin. Waxaan idin soo gudbin doonaa qiso qurux badan oo dhex martay wiil yar oo lagu magacaabo Kersey iyo Mohamed Salah oo ugu dambeyn uu ku islaamay wiilkan yar. Waxayna ku bilaabanaysaa qisada. Waxaan ahaa mid aad u neceb Islaamka. Markii aan maqlo Islaam, waxa igu soo dhici jiray inay yihiin dad gacmahooda uu ka daayo dhiig ama vampire ah. Waxaan dhibi jiray ardayda aan isku fasalka nahay oo haysta diinta Islaamka. Magacaan maqlo waxaan ugu necbaa Mohamed, waayo waxaan aaminsanahay inuu yahay kan dunidani u keenay xasilooni darada. Waxaan ahaa taageere Nottingham Forest. Waxaan ugu necbaa Manchester United, balse nacaybkaan u qaaday Manchester mid ka weyn waxaan u qaaday Liverpool markii uu yimid Mohamed Salah. Waxaan u rajeeyay inuu noqdo flop, balse wuxuu noqday superstar. Maalin ayaan go'aansaday inaan waxyeeleeyo isaga. Waxaan imid garoonka ciyaar u dhaxaysay West Ham iyo Liverpool. Waxaan maqlay taageerayaasha Liverpool oo ku heesaya Mohamed Salah. Allah ayaa ku dhaliyay heybadani. Ciyaarta markii ay dhamaatay, waxaan uga hormaray albaabka garoonka. Isaga waxa uu sawiro la galayay taageerayaashiisa. Markii uu soo baxay, waxaan ku fikiray inaan waxyeeleeyo isaga, balse meesha waxa buuxay ilaalo fara badan. Laakiin waxaan go'aansaday inaan caayo badanaa dadka madow markii la rabo in laga xanaajiyo. Waxaa lagu tilmaamaa daanyeer, kadib way caroodaan, hoos u dhac ayaana ku yimaada. Anigu waxaan doonayay hoos u dhaca Salah, laakiin isagu ma ahayn ruux madow. Waxaan waayay meel aan ka weeraro, balse waxa ii soo baxday inaan caayo diintiisa iyo waalidkiisa. Anigoo khaylinaya ayaan ku dhahay, Salah, waxaad tahay argagixiso saaxir ah, dadka ayaad cuntaan, waxaad ku dhalatay wacalnimo. Intii markii aan dhahay, durbadiiba waxay qabtay ilaalada meesha, balse shakhsigii aan sidaas u caayay ayaa u yimid ilaalada, wuxuuna ku dhahay, waa wiil yar ee iska daaya. Markaas ayuu soo eegay isagoo dhoola cadeynaya, wuxuuna igu yiri, waad mahadsantahay wiilkii yaray. La yaab ayay igu noqotay arrinka. Waxaa igu soo dhacday heestii ay taageerayaasha ku heesayeen oo ahayd Mohamed Salah, Allah ayaa u dhaliyay heybadani. Waxaan aad u jeclaaday habdhaqankiisa. Kadib ayaan go'aansaday inaan si dhuumashaha YouTube-ka ugu raadiyo waxyaabo ku saabsan diinta Islaamka. In badan markii aan daawaday kanaalka Peace TV, waxaan go'aansaday inaan islaamo, balse waxaan ka baqay waalidkayga maadaama ay da'daydu ka hooseysay 18 sano oo aanan qaadan karin go'aan. Balse waxaan go'aan ku gaaray inaan u sheego waalidiintayda. Allah ayaan talo saartay. Waalidkayga iyo walaalahayga ayaan ugu sheekeeyay dhacdadii Mohamed Salah ina dhex martay iyo waxyaabihii aan YouTube-ka ka daawaday. Intay ilmayeen ayay igu dhaheen, wallaahi wixii adiga ku bedelay waa arrin xaqiiqo ah. Kadib waxaa islaamay aniga iyo familigayga. Hadda wiilkaasi waxa uu la baxay Mohamed, inkastoo uu necbaa marka hore magacaasi. Haddana Allah ayaa hanuun ugu dhigay Mohamed Salah. Isaga iyo qoyskiisa hadda waxay ku nool yihiin nolosha ay ku nool yihiin qoysaska kale ee Islaamka ah.